wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland ee gobolka Awdal ayaa maanta kooxo dhakhaatiir oo soo tallaali doona xoolaha u kala dirtay deegaanada hoos yimaada gobolada Awdal iyo Salal. Dhakhaatiirtani oo muddo 60 cisho ku maqnaan doona deegaanadaasi ayaa fulinaya daaweyn iyo tallaal dhanka xoolaha ah. kooxahani dhakhaatiirta ah oo maanta ka anbabaxay xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha ee magaalada Boorama ayaa waxa munaasabadii lagu soo bootinayay kala qayb galay mas'uuliyiinta wasaaraddaasi gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaana la dardaarmay kooxahani dhakhaatiirta ee u anbabaxay sidii ay u daaweyn lahaayeen xoolaha isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolkani Awdal Daahir Muuse Xuseen isagoo sidoo kalena dadka xoolo dhaqatada ah kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan fursadani. halkan waxa ku diyaara 5 gaari oo talaalkii u baxaysa muddo ku siman 6 maalmood iyo daaweynba halkan ku diyaara oo degmooyinka u kala baxaya degmooyinka ay u baxayaan madaxdeeda iyo tuulooyinkeega waxaan ka codsanaynaa inay tiimamkaasi laga faa'iideysto gacan ay siiyaan sidaas ayaan gudoomiyaashana u dirayaa marka gudoomiye waxa halkan ku diyaara 5 gaari 5 taas oo kala baxaya gobolka Awdal iyo Salal una diyaara in hawsha loo idmaday soo gubtaan dhalinyarada dhakhaatiirtan waxaan farayaa inay sida ugu habboon shaqada u soo gudbaan xoolo dhaqatada waxa la inoogu dhiibay aan gaarsiino waxa jirta meelo badan oo laga qayliyo gobolka sida imika saacada imika joogno ceelgaal baa laga soo qayliyo oo la soo hadlay sida ugu dhaqso badan inuu loogu anbabaxo dadka xoolo dhaqatadana waxaan farayaa inay ka faa'iideystaan waxa jira qaar talaalka diido xoolihii baan noo fiican ilaahay dhawna soo qayliyo. intaa kadib waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi isagoona arintani ku bogaadiyay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay bulshada xoolo dhaqatada ah inay soo dhaweeyaan dhakhaatiirtani. runtii waa farxad bay noo tahay inaan tiimkan bulshada u soo adeegaya aan la kulanno maanta tiimkan oo kala bixi doono runtii labada gobolba Awdal iyo Salal. horta ka gobol ahaan anagu aad bay idila shaqaynaynaa wadi soo dhaweynaynaa mar haddaad adeeg bulsho bixinaysaan waa wax muhiim ah tanna waa mid aad u muhiim ah runtii isku duwaad la shaqaysaan ee madaalaha oo gobolka Awdal maanta qaybaha dawladda labada isku duwaadka ugu amaan badan ee waxqabadkii gobolka hay'adaha iyo markaan shirinay xanaanada xoolaha iyo beeraha ay noqdeen hay'ado badan wax ka qabteen iyo kuna ay fuliyeen aad baan ugu amaanayaa runtii Daahir waxqabadkiisa ballaaran isaga tuuleedii yaqaana isaga ayaa mar walba ku maqan hadda tuulo tagto waxaad arkaysaa Daahir balka xadhi ku daweeyay hore hadda mar xoolo joogan aad baan runtii Daahir noo hambalyeynaa idinkana waa idin hambalyeynaa bulshadana waxaan baa ku dirayaa inay ka faa'iideystaan service-ka la siinaya ama caafimaadka la siinaya bilaashka dadka waa inay u adeegaan runtii waxaan lagu yaqaanaa martisoor iyo wanaag waxaan leenahay xoolihiina soo diyaariya ka faa'iideysta lana shaqeeya waanan idigu hambalyeynaa amba bixina afarta degme gobolka Awdal Salal sidoo kale runtii bulshada in loo adeegoona daalin in dadka services-aan baa muhiim marka dadkeena nood ka helaysaa wixii waa bulshadeeni waa dadkeeni waa xoolaheeni xoolo dhaqatada hadii xoolo ka baxaan deynaka inoo imanayaan adoo isku mid kale xoolo ma ka maarmi karnaa waa waxa kale haatay ugu muhiimsan in ka maarmi karin mid kale Soomaalidu dhaqada waa xoolo sadaradeed aad baa idin hambalyeynaa runtii hambalyaan idin leeyahay dhammaantiin tiimkan isku duuban dad jecelnaad noqotaan oo wada shaqeeya dad jiha qurale dad bulshadooda u adeegaya inaad noqotaan gobolkuna waa idin diyaar iyo degmooyinka oo dhan insha Allah taala. dhakhaatiirtani ayaa muddada 60kaasi cishay ku sugnaan doonaan deegaanada hoos yimaada gobolada Awdal iyo Salal ka fulin doona tallaal iyo daaweyn dhanka xoolaha ah. waa Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.